ayaa lagu eedeeyay in uu bilaabay wax yaab leh oo aanan hore madaxda Mareykanka u soo marin. Trump sheekooyin yaab leh adduunyada marba dhinac u roga. Xitaa waxaa hore loogu eedeeyay in suuqyada adduunka oo kor iyo hoos u kiciyo. macnaha marna wuxuu leeyahay xiisa dagaal u abuuraya badeecada kor u kacaysa. Mar suuqyadii xitaa exchange rate uu ka faa'iideystaa. ganacsiyada online waa lagu eedeeyay qoyskiisa laakiin sheekadii mid ka daran baa hadda taagan ninkii Trump waxaa lagu haystaa oo qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka senatarada ay ku eedeynayaan in Trump uu bilaabay xitaa isaga bartiisa X soo dhigay Twitter-ka iyo isaga iclaami maan wax oo xildhibaanadu xitaa iska qiyaasanayaan. Trump wuxuu ku leeyahay haddaad rabto inaad hesho wararkii ugu dambeeyay go'aanadii ugu dambeeyay madaxweynaha Mareykanka uu qaadanayo qof ugu horeysa u noqoto the truth social media wararka laga helayo wuxuu ku leeyahay subscribe sar barteed truth social media $100,000 way subscribe xitaa ma ayaa $100 iyo $10 ma macnaha dadkii masaakiinta oo rabay dalkooda waxa ka dhacay inay wax ka ogaadaan baba ogaan karaan markay ogaadaan ganacsada waaweyn Elon Musk iyo Warren Buffett iyo Bill Gates iyo markay ogaadaan in Amazon iskale markay waxaas ka soo dhirgaan ayaa dadka masaakiinta ah ee aanan awoodin inay warkiisa bartiisa ku soo biiraan ilaa $100,000 lacag saalan ma ayuu leeyahay warkaygu waa helaysi $100,000 saad warka Trump u hesho macnaha xiisadu abuuraa sheekooyinkan adduunkan dadka baaba'ay iyo hormuusan xiriir dhaqaaliga adduunka kacayo ninka xiisadaas warar way ilaa war markuu jiro ay dadku wax daneeyaan wararkii lacag ka sameynaa uu leeyahay ninkan truth social media 100k ila daaw mid kamid ah xildhibaanada Mareykanka oo arinta aad ugu cambaareynaya Donald Trump an insider trading information subscription service. If you pay Donald Trump $100,000 a month, he will give you early access to the announcements he's making regarding federal policy. Early access to information about tariffs, early access to information about the Iran war, early access to information about what country he's bombing next. This is a criminal syndicate that he is running out in the open. It is illegal to make money off of inside information. Donald Trump is literally setting up a formal process by which you can pay him a bribe in exchange for information that no one else has. $100,000 a month. Big billion-dollar corporations have that money. And when they have advance notice of a tariff announcement, they can place bets on the market to be able to... xildhibaanka wuxuu leeyahay Donald Trump dambi caadi buu gacanta kula jiraa buu leeyahay in madaxweynihii Mareykanka uu informationkii macluumaadkii uu lacag ku qaadanayo waa bribe waa laaluush waa inaad laaluushaa si aad u hesho go'aanka la qaadanayo waxaa bixin kara buu leeyahay big corporations shirkadaha waaweyn bilyaneerada ayaa bixin kara $100,000 qof caadi ah ma bixin karo xitaa qof 1 milyan haysto $100,000 bil kasta ma bixin karo qof 2 milyan haysto xitaa way ku adagtaa wuxuu leeyahay shirkadaha waaweyn ah bixin kara buu leeyahay iyo tujaarta dadkaas rabaa inuu siiyo mid kale wuxuu leeyahay waa khalad in information inside information wax la dhaho macluumaadka hoose sirta dalka in lacag laga sameeyo macnaha si uu ogaado dalka uu garaaci doono bambeyn doono heshiisyada Iran uu la galayo heshiisyada ganacsi uu galayo go'aamanka aqalka la qaadanayo si aad u ogaato bisha waa inaad $100,000 bixisaa ka war madaxweynihii Mareykanka oo dadkii Mareykanka sirtoodii akhbaaraadkoodii go'aamanka noloshooda quseeyay lacag ka sameynay macnaha ma wax sheeka isaga soo tweet garay sida bartaada kaga muuqato waa tweetkiisi X ku soo dhigay waa qoraalkiisi wuxuu leeyahay meel dhan truth social media lacag ka sameynaa macnaha si lacag badan u sameeyo waa inuu xiisada abuuraa marka dad badan ay u subscribe gareeyaan ay ugu soo biiraan xaaladu abuuraa marka waxa saaxiibada qiimiga loo qodobka la yaab kale dambi uu ku sheegay xildhibaanka daadlaayay dambi cad ay tahay in akhbaarta hoose ee dalka la gato waa dambi madaxweynihii Mareykanka uu ku dhacay cid kale oo Soomaaliland hore laga xiri lahaa lama garanayo wax dhici doono wixii ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaynu ku faaqidi doonaa qodobka xiga barnaamijka gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran Maxamed Baghar Ghalibaf
waxa uu ku dhawaaqay hadal miisaan iyo saameyn culus leh waxa uu leeyahay Iran waa ay ku guuleystay dagaalkan oo guul ayaan gaarnay buu leeyahay dabcan Iran Trump oo laftirkiisa qirtay inay tough yihiin they are very tough Iran are very tough Iran waa tough way dagaalameen buu leeyahay shalay wuxuu qirtay in 5 diyaaradood nidaamka difaaca Mareykanka ee loo yaqaan Patriot oo qabtay anaha oo ay Iran ku beegsaldhigay Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe Trump markuu wuxuu leeyahay Maxamed Baghar Ghalibaf gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran oo kamid ahaa odayaasha wada xaajoodka Iran u qaabilsan dagaalkan wuxuu leeyahay dadka Iran iyo dunida u qiraya markii ugu horeysay ay Iran sheegato waa guul Mareykanka lagu yaqaan waarna in dagaalkan waa ku guuleysay Iran waa baabin dhijir Iran markan si cad waxay u leedahay dagaalkan anaga ku guuleysan Mareykanka oo awood isbidayay Israa'iishi ilaa Israa'iil ay dhado ma degdegeen anaga Mareykan la dagaalamo macnaha waxay leedahay Iran anaga nimankan waa ka farxalan laakiin wuxuu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Iran waxaan u baahanahay istiraatiijiyo long term macnaha waqti fog qorshe Iran ay amnigeeda ku suganayso oo aysan khatar iyo halis kale u dareemaynin ay u baahan tahay buu leeyahay maxay tahay dadka qaar qubrada waxay u fasirteen in arinta tahay in Iran ay sii hormariso gantaalada ridada dheer leh nidaamkeeda difaaca oo hadda ay sheegtay in China ay ka hesho hub casri oo difaac iyo sidoo kale in Iran ay degdeg u hesho nuclear-keeda horumarintiisa taas oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku marmarsiyoonayeen inay hayd ujeedooyinka fog ay dagaalka u galeen haddaba miyaa lala qabaa Maxamed Baghar Ghalibaf guusha uu sheeganaya ah in Iran dagaalkan ay ku guuleystay qaar ka mid ah qubarada militariga arrimahan aadka uga faaloodo waxa ay leeyihiin marka loo eego filashadii Mareykanka iyo dunida laftirkeeda dagaalkan waxa ay ka filanayeen in Israa'iil iyo Mareykan ay iskugu tagaan Iran iyo dilkii degdeg loo dilay hogaamiyihii Iran Ali Khamenei waxa la islaa isbedel baa dhacay Iran laakiin intaas oo dhan ay Iran ka badbaaday 40 maalmood oo duqeyn goobo muhiim oo laga beegsaday iyo wali Iran oo awood u leh inay saldhigyada Mareykanka duqeyso in Mareykanka laftirkiisa uu khirtay sida ay warbaahinta Mareykanka qorayeen in nidaamkii difaaca Mareykanka ee saldhigyada bariga dhexe sida Jordan oo kale ay ka sii dhamaadeen oo xitaa hadda Mareykanka ay ku adagtahay saldhigyadiisa bariga dhexe inuu siday tahay u difaacdo oo ay Pentagon-ka Mareykanka barnaamijka shalay aan ku soo qaadanay ayaa khirayso in nidaamkii difaaca uu ka sii dhamaanay marka inta oo la isku daray dabcan Iran dagaalkan wax weyn bay ka soo saartay iyadana wax weyn ayaa gaaray ugu dambeyn waxaynu barnaamijka ku soo afjaraynaa xilli la filayay in dagaalka Gaza uu gabagaba yahay qorshihii Mareykanka loo diyaariyay loo bixiyay 20 qodob and 20 points Trump loogu yaray oo loo sameeyay dad loogu yaray the peace of board of peace isbedel Hamas waxay sheegtay inay hub ka dhigayso oo ay ku wareejinayso guddiga Falastiiniinta iyo dadka Gaza la wareegay maamulkeedana hore u sheegtay inay wareejinayso intaas oo dhan markay dhacday waxa la filayay ugu yaraan Israa'iil inay la imaado qorshe ay Gaza uga baxayso laakiin Netanyahu kooxdiisa uma muuqdaan kuwa doonay inay Gaza ka baxaan maanta maxaa Gaza ka dhacay arrin la yaab leh oo urkutaala ayaa maanta ka dhacday Gaza maanta ay dib u weerareen Gaza iyagoo burburiyay isbitaalka Al-Aqsa ee ku yaala Dar al-Balah waa mid ka mid ah isbitaalada ugu muhiimsan ee Gaza u soo haray waayo Gaza waxa laga burburiyay inta badan isbitaalada burbur weyn ayaa maanta gaaray dad bukaana halka yaalay ayaa lagu waramay qaar inay ku dhinteen kuwa kale ay dhaawac kale u ka sii gaaray ilaan qof markii hore dhaawac la jiifay ayaa duqeynta Israa'iil ay dib u dhibaataynaysaa waxa aad u cambaareeyay dunida inteeda badan weerarka maanta mar kale Israa'iil ay ku qaaday iyo burburka Al-Aqsa Hospital ay u geysatay waxaana la sheegay tan inay ka hor imaanayso xuquuqul insaanka iyo dhammaan shuruucda caalamiga laakiin Israa'iil ayaa lagu yaqaanaa in shuruucda caalamiga iyo wixii xuquuqul insaan la dhahay maxkamadii dambiga dagaalkaaba weerar lagu yahay ilaa iyo xeer ilaaliyaashii iyo dacwo oogayaashii cunaqabateen la saaro Trump iyo kooxdiisa ay garab ku siiyaan marka waxaa la leeyahay tani waxay abuuraysaa in kalsoonidii kooxaha ka dagaalamayay Gaza iyo bariga dhexe aysan mar kale
aaminin xitaa qorshaha Trump iyo kooxdiisa ay wadaan oo ah in dagaalkan la soo afjaro. Trump shalay waxa uu ku faanayay in isaga kaliya uu yahay cidda suurto gelisay in Xamaas hubka ay dhigto oo ahayd wax aan la filaynin. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka isla meesha ayaan uga gudbaynaa. ugu dambeyn waxaynu barnaamijka ku soo xiraynaa qaybtii ugu dambeysay qodobkii aan ballan qaadnay oo ahayd xiisada ka taagan Ethiopia. Ethiopia waxaa dib uga soo noqday ama ugu bilowday baa la leeyahay dagaalkii sokeeye. madaxa la iskula jiraa muddadii u dambeysay Ethiopia way ka yara roonayd bay leeyihiin dadka arrimahan ka faalloodo dagaalada hadda ka socda. laakiin hadda Ethiopia in sida ay warbaahinta iyo wararkii u dambeeyay ay sheegayaan dagaal ba'ana dhacay. dagaal xoogan ayaa kowdii bishan hadda aynu ku jirno shalay ilaa ay xalay ka socday ama dib uga qarxay deegaanka Shiraro ee galbeedka Tigray. dowladda federaalka Ethiopia iyo TPLF ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay. haddaba wararka ayaa sheegaya in ishorimaadku uu ku lug lahaa ama la isu adeegsaday madaafiic culus iyadoo la arkay deegaano badan oo ku yaala Shiraro iyo deegaanada Tigrayga in burbur ballaaran uu gaaray. qubaradu waxay ku tilmaameen dhacdadan tii ugu halista badnayd tan iyo heshiiskii nabadda Pretoria ee 2022 xilligaas oo xiisadii Ethiopia la sheegay in qayb ahaan la qaboojiyay. laakiin hadda waxay u muuqataa in Tigrayga mar kale ay aaminsan yihiin in nidaamka Amxaarada iyo Oromada gaar ahaan nidaamka Oromada Abiy Ahmed inkastoo Oromada laftirkeeda Abiy Ahmed ay ka sheeganayaan Amxaarada ay ka sheeganayaan macnaha markii hore Abiy wuxuu ku soo galay dictatorship inuu la dagaalamay. hadda waxay u muuqataa kaliya talinimadii lagu eedeynayay Tigrayga tiisa inay ka daran tahay. waa markii ugu horeysay qof Oromo ah waqtiyada u dambeeyay xil inta la eg uu qabto. laakiin ninkan waxa lagu eedeynayaa in xitaa Oromadii ay dacwo ka tahay u dhibaataynayo. Ethiopiankii uu kala dirayaa baa leeyahay Abiy hadii sidan uu ku socdo. waxaa jirta cabsi laga qabo in dagaalku mar kale si buuxda ugu faafo waqooyiga Ethiopia kaliya uu soo ka ekaanin Shiraro. warbaahinta caalamka maanta ilaa ay xalay waxa aad loo hadalhayaa ciisadan iyo xaaladan cusub iyo dagaalkan ba'an ee mar kale gudaha Ethiopia ka qarxay xilli Ethiopia lagu waramayo in dhaqaale darro ba'an iyo xaalad abaareed ay la dhibaataysnayd sanadyadii ugu dambeeyay. saaxiibada qiimiga leh wixii ku soo kordho xaaladda geeska Afrika iyo bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka barnaamijyada dambe ayaanu ku faaqidi doonaa.